المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن شاء الله الليال إن عن دور قضب وقوانا كي نعضو وضعيا إيا حالدنا إنو كجرنو وعيس ويدين لبرياء دروستي فصعبا هاي المساجد كه وحكينا عاوين عن هرتي الناس فريسة وعن كلمة عن الأهضو سيدا ولا اللي يرين وذوقنا هاي دي أدونكم ما أنت حالة دقدقة محارة الطوارئ يوسكي جيرا كل إنقونا دي قدية هيغا نبين ولينا هايو هبين يمارين باوتاغن hadba wixii soo kordha iyo sidii ay dadka talo uga siin lahaayeen aafadan iyo musiibadan adduunka maanta ku habsatay Allah inaga badbaadiye marba guddiyaasi dee tallaabooyin iyo talooyin bay ummadda u soo jeedinayeen waxaa ugu dambeeyey talooyin iyo tusaalayaal ay runtii ummadda ay u soo jeediyeen oo khuseeyey xagga salaadaha iyo goobaha la isugu imanayo taas runtii waxay keentay inay dadka runtii walwal fara badan xagga masaajida kaga abuurto annagana runtii su-aasheeda ay nagu badatay oo sida maanta duhurkiiba arkayseen koono walba masaajidka waa laga kacay iyagoona masaajidka yaana laga xidhin xataa dadu hadalku ku adag yahay oon aad u hadli karaynin baa kacay oo istaagay oo hadlay dibadda markaanu u baxnay ilaa xariga masaajidka ka baxno dadku hortooda ayay nagu sugayeen ayna daba guurayeen telefoonada iyada hadalkooda badaa nagu soo dhacaya iyo dadka soconayeena xaaladan taagan iyo masaajida maxaa wax uga odhan weydeen kelmadda runtii waxaa u sababaa arrintaa inaan wax ka nidhaahno haddaan culimadii nahay waxaan arrintaa ka odhanayaa dhowr qodob oo kooban qodobka koowaad waa mahadnaqoo ilaahay baynu u mahadnaqaynaa marka koowaad waxaynu u mahadnaqaynaa ilaahay nicmada iimaanka iyo islaamnimada iyo nabadgelyada iyo caafimaadka ee ilaahayna siiyey ee uu nagu manaystay ilaahay waxaynu ka baryaynaa oo aynu weydiisanaynaa inuu nicmooyinka inoo joogteeyo ilaahay waxaynu weydiisanaynaa xanuunadaas iyo dhibaatooyinka maanta adduunka ku habsaday ilaahay inuu inaga badbaadiyo oo ilaahay uu ina ilaaliyo innaga iyo dadka muslimiintaaba ciddii ku dhimatayna ilaahay shuhado inuu ka yeelo cidda ku dhibaataysanna ilaahay uu ka caafiyo mar labaad waxaa runtii aynu u mahadnaqaynaa guddida loo unkay ka hortagga iyo wax ka qabashada xanuunkan iyo aafadan maanta adduunka ku habsatay ee uu madaxda ka yahay madaxweyne ku-xigeenku runtii dadaal weyn ayay muujiyeen maalin walbana ay muujinayaan heegan baanay ku jiraan waxaynu ugu mahadnaqaynaa runtii inay qaybaha bulshada kala duwan ay la tashadeen oo ay ka mid yihiin culimmadu inay u yeedhaan ay la tashadeen waxay u yeedhaan ay la tashadeen qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid yihiin dadka ganacsatada ah siiba dadka qaadka ka ganacsada waxaa runtii aynu ammaanaynaa ayaynu iyagana ammaan u soo jeedinaynaa dadka qaadlayaasha mowqifkii ay iska taageen markii loo yeedhay inay yidhaahdeen annagu wax walba diyaar baanu u nahay idinka ayaan dowlad ahaan idinka sugaynaa arrin iyo talo idinka ayaan idin fadhinaa bay yidhaahdeen ilaa imikana iyaga dowladda ayay sugayaan iyo guddida waa ammaanaynaa runtii mowqifka ay istaageen ee lexe jeclada iyo uturidda ummaddooda uu ka muuqday wadatashiga runtii guddidu ay samaysay ee ilaa maalin kastaba ay samaynayso bal haddii ogaado waa waxaynu maanta adduunka dheernahay adduunka dowladaha iyo andimada ka jira cidba waxba ma weydiinine hadday masaajid iyo hadday meel walba tahay albaabadun bay isugu dhufteenoo yacni xugun militarin bay meel walba ku soo rogeen
hadday guddideennii iyo dowladdeennii innagayna la tashanayso, culimmadii la tashanayso, ganacsatadii la tashanayso, cid walbaad la tashanayso, wax ilaahay loogu mahadnaqo weeyaana taana aynu ogaano. qodobka saddexaad waxaa runtii aan caddaynayaa maanta runtii waxaa soo baxay runtii dee hadallo badan baa ummadda ka soo baxayo, cadho fara badan baa ka soo baxayso, hadallo fara badan baa runtii ka soo baxayey. waxaa runtii aan caddaynayaa dee dowladdeenna iyo guddideenna ay noo dhisaniba talooyinka iyo amarada ay soo rogayaan ee mararka qaarkood adag ujeeddada ay ka leeyihiin amaba waxa riixaya ee dabada ka wadaay waxa weeye waa baqa iyo cabsi runtii ay ka qabaan xanuunkan halista ah ee maanta adduunyada ku habsaday ee dowladihii waaweynaa ilaahay baa weyne uu xisbidayey maanta ay waxba ka qaban kari waayeen, baqa ay ka qabaan iyo digtooni iyo digiday ummadooda uga digayaan intaanu ku faafin ee aanu soo gaarin in laga hortago. runtii habeen iyo maalinba warka ay soo dirayaan iyo fariimaha ay sheegayaan arrintaasaa ugu wacanayna waa dadkeenna waynu garanaynaaye ujeeddadoodu colaad diineed iyo masaajid inay xidhaan iyo inay diinteenna ay waxyeello u geystaan ujeeddoodu maahay ummadooda inay badbaadiyaan oo say u badbaadin kari lahaayeen ay u badbaadiyaan ayay wadaan. qodobka afraad culimmadii ay u yeedheen ee ay kala tashadeen xagga arrimaha diinta talooyin fara badan ayay soo jeediyeen oo naseexadii iyo taladii culimmada lagu yaqaanay bay dowladdeenna iyo ummaddaba u soo jeediyeen. waxaa ka mid ahayd inay shareecadeenna subani ay bannaysay ummadda inay ka maqnaan karaan jumcaha iyo jamaacooyinka xaaladda ay daruuro iyo dhibaato adagi timaado. xaalatu daruura waa maxay? xaalatu daruura waa marka qofka loo baneeyey baktiga inuu cuno. xaalatu daruura waa marka oo kale masalan inta ay dhimasho fara badani dhacday qof kasta gaar loo aasi kari waayey intaas oo qof oo dhintay laysu gelinayo marka ay mashaqada caamka ah ee sidaasoo kalahay ay dhacdo ayaa la yidhaha xaalatu daruura weeye, oo la yidhaahdana qaacidada fiqiga ay tahay addaruuratu tubiixu lmaxduur. daruuro noocaasi markay timaado wixii xaaraanta ahayee bannaanaa ay xaaraanta ahayee bannaanayn ayay bannaysaa. culimmadu taa'ifadooda inay sheegeen waa taana maynaan gaadhin weli, ilaahayna inama gaadhsiiyo umana dhowin. weliba culimmada talooyinkooda inaan masaajid iyo arrimahooda lagu degdegin ayay talada culimmaduna ay ahayd. guddideennu hadda arrinkan laga qaylinayo ee ayaamahan ummadda kiciyey dee waxay fareen ummadda oo ay u soo jeediyeen 4 usbuuc in guryaha lagu tukado masaajidda laga maqnaado. masay odhanin masaajidda ha la xidho. hadalkan laysa dhex maraya dowladda masaajid bay tahay culimada masaajidii miyaa xidaysaan? culimmaduna may odhanin, lajnadeen iyo guddeena may odhan. waxaana maanta arrinkaa caddeeyey oo si fiican u faahfaahiyey wasiirka warfaafinta Salmaan Cali Koore ayaa caddeeyey inaanay ayagu odhanin ha la xidho, culimmaduna may odhanin. qodobka 6 caalam alislaami waxaa soo maray dhibaatooyin kala duwan. dagaallo gacmaha laysula tegay ayaa soo maray oo qur-aankeennu inoo tilmaamay iyadoo gowda laysku hayo in salaaddii iyo jamaacadii la oogayo oo laysku xidhanayo. weliba waxaa soo maray daacuunno iyo cudurro ummadda qaybo badan laayay oo tarar u laayay ayaa soo maray. lama hayo ama lama sheegin mid culimmada muslimiinta ka mid ah oo aynu ognahay oo yidhi masaajidda xilliyada ha la wada xidho ha laga tago, ma hayno. bal waxaynu haynaa culimmada muslimiintu ayagoo ka hadlaya
shanta salaadood xilliyadan u dhaxeeya masaajidda ma la xidhi karaa oo salaadaha dhexdooda ma la xidhi karaa mise 24 saacba masaajiddu inay furnaadaan weeye bal hadda waxaan soo qaadanayaa hadal imaamu nawowi uu leeyahay oo kitaabkiisa majmuuca sharxu lmuhadarka uu ku leeyahay waxa uu leeyahay qaala sayramiyu wagayruhu min asxaabina sheekha sayrami la yidhaahayaa in badan oo asxaabtayada ka midii waxay yidhaahdeen laa ba'sa biiqlaaqi lmasaajidi fii gayri waqti salaa wax dhibi kuma sugnaa masaajidda in la xidho xilliyada salaada xilliyada aan ahayn waase lisyaanatii si loo ilaaliyo aw lixifdi alaati ama alaalooyinkiisa loo ilaaliyo wakhiifa imtihaanuhu aw diyaacuhu oo lagana baqanayana inay alaabtii iyo gogashii masaajidku hadduu dee 24 saacba furnaado inay markaa dayacanto oo ay markaa uskagowdo oo ay wasaqowdo oo lagu tukan kari waayo si alaabtiisana loo ilaaliyo nadaafadiisina looga shaqeeyo ayaa waxay yidhahdeen haddii loo baahdo waa la xidhi karaa ayadoon la xidhin haddii la ilaalin karo alaabtiisii la ilaalin karo oo nadaafadiisii laga shaqayn karo waxay yidhaheen fasunnatu an yakuuna maftuuxan sunnuhu waxa weeye masaajidku 24 saacadoodba inuu furnaado si masjid xaraamkaba dee aynu ku arki jirnay shaqaalaha nadaafadu ay istaba wareegi jireen marka xaaladaasay culimadu ka jireen salaadaha dhexdooda laakiin cid tiri markaa salaadaha oo dhan ha laga wada xidho culimada muslimiinta ma jirto saacad isaan soo marin waxa jira cudur daaro ay salaada jamaacada iyo salaada jumcadu leeyihiin oo qofku uga hari karo adaarta laba qaybood baa loo qaybiyaa qaar waxa la yiraahdaa adaar khaasa waa kuwa gaaraha oo qof qura ayuunbay khusaysaa waa qofka xanuunsanaya waa qofka qof xanuunsanaya haya waa qofka nafdiisa ama maalkiisa ama ehelkiisa u cabsanaya oo kale qofka arrimaha cudurdaarada gaarka ah ay ku sugan yihiin jamaca iyo jumcada wuu ka hari karaa qaarna waa acdaar caama baa la yidhaahdaa waa acdaarta caamka ah ee dadkoo dhan wada caminaysa maxaa ka mid a dee habeen ama xilli markaa roob mahigaani uu da-ay oo roobkii uu da-ayo oon la soo dhex mari karaynin ayadoo dhooqa iyo ligis markaa dhulkii oo dhan u wada fadhiyo habeen mugdi uu yahay oo dadkii aanay dariiqiiba arkaynin habeen dabayl iyo qabow darani uu jiro taa lafdeedu caam ha ahaatee haddana dhinaca khaas bay ka tahayoo dee waa habeenkaa iyo saacadaha roobku da-ayo iyo xilligaa dhaxanta iyo mugdigu jire wiigag iyada lafdeedu wax qaadanaya iyo 5 salaadood ma aha ee waa salaada ay ku soo hagaagto uu weeye waa cudurdaarkii xataa caamka dhinaca marka laga eegana khaas buu ka yahay qodobka toddobaad ee aan ka hadlayo sida aynu walaalayaal ka dhareegsannahay aynu wada ognahay masaajiddu waa meesha ilaahay dhulkiisa ugu jecel yahay waa meel khayr iyo barako ilaahay uu dhigay waa meesha lagu gudanayo faralka ugu muhiimsan faralyaalka ilaahay nagu faral yeelay ee salaada ah 5 waqti looga yeerayo ummadda muslimiinta ah ay ku gudanayaan waxay leeyahay xataa cumaar malaa'iga bay leeyihiin oo maalinta jumcada kelimada istaagayo qof waliba markuu soo galo liistaynayo oo marka dambena khudbadda iyo digriga ka qayb gelaya nabigeennuna sala allahu calayhi wasalam idaa xasaba amru baadara ila salaa marka ay arrini ku timaaday arrini ku adkaato salaada ayuu u degdegi jiray waxaa kaloo ilaahay uhi wastaciinu bisabri wasalaa waxaa kaalmaysataan sabir iyo salaad kaalmaysaba ilaahay yidhi maanta inaynu masaajidda u soo cararno oo aynu intii hore kaga badanno oo aynu sabir iyo adkaysi iyo tala saarso ilaahay iyo salaada badinteeda inaynu u orodno weeye masaajiddu waa meeshii dadka laga waaninayey ee wax looga sheegayey ee kii xanuunsanayey laga booqanayey ee kii baahnaan laga caawinayey ee ka dhintay lagaga tukanayey waxay ka dhigan tahay cusbitaal oo kale masaajidku ka dhigan yahay waa cusbitaalkaasoo kale ayuu ka dhigan yahay
وهلكي ددك لقى دويني وهلكي ددك دندود لوga sheegay haday la xiro oo aynu kala tuuno hogaanku inoo kala go'aya meel alliyaaliya meel aynu ka xiriirno iyo meel aynu qof dhintay kaga tukano iyo meel aynu iska caawino iyo meel aynu wax isaga sheegno iyo meel aynu wax iska farno midna heli mayno وهلكي umada isku xudhaysay isku haysay weeye وهلكا إلهي إلا إنو كبر ييناه دواكا إمامكو صلاة والبا إنو قبنو ضيا إنتي الناس من أينو آمين لنا هاي أينو إلهي إنو إنو بداديو إنو إلهيو أينو إلهي كبر يينو وأمضي هراء يقود يسوچ هذيين دوان فليو لماذا هو فليونو إن حراميات الله حلو إن إله لقوي سيسان الحلوة كواسوه والحليين إن مساجد الله بنوضه إلهي لا قبريو دواتا إذا ما نوبا كبنوضه إنه تردي يبرك واقعنا علماؤنا إلا ما أنت دوا ونهل ينو ويسركيين وحيرون دي سيري غرابة أي يقول تليين أي يقول نصيحيين ما أنت لا يقول تليين أي يقول نصيحيين أيام خلقان بها إنه بصفه له بشي غيرك يونا قويين dadka in wara badan oo kamidna de suuqa ay ka adeegtaa suuqa ayay ka afurtaa hadii guri la fadhiisiyo cid wax siinaysa ma jirto meel uu ka afurayaana ma jirto meel ay qabanayaan guri ay fadhiyaan ma jiro intana ayuun bay joogayaan waxay culimadu runtii ay ku tarinayaan in talaabooyinkii iyo qodobadii faraha badnaay ay soo jeediyeen ee qodobka la daliishaday ka horeeyay ee shandaha in la fuliyo oo ka mid yahay qaadka oo la joojiyo oo ka mid yahay diyaaradda oo la joojiyo ilaa imikada mafaarishtii iyo meelihii lagu qayilayay ayaa sidoodii u furan qaadkina waxa moodaa dardar iyo dhiidhi inuu sii kordhiyo yaani dhawaqii iyo qeynadii waa bay sii kordhiyeen aragsi baad moodaa inay bilaabeen waxa soo dhami waxa weeye waa wixii la sugaya waxaan kelmadayda aan ku soo gabagabaynaya ilaahay ayaynu ka baryaynaa إن وحنونك يا آفاتك إلهي ونقبض باديو إلهي أيين ويديسان إنه نقبض باديو إلهي أيين ويديسان إنه إله عليو إلهي من ويديسان إنه يسوي أيا أود له إنه ما أنت أود من هنا إلهي أوديس يا إلهينتيس إنه نقول إلى عليو مساجدنا وهلك أينو كم يجري وفروا إلى الله هل كأنه عربي أينو حنوني وعج سوينا ويا مدبا أينو كم يجري إنه كسر جري وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.